الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. casharkani wuxuu ka bilaabmayaa aayadda 40 ee suuratulbaqara ka mid ah. waxaa halkaa hore ilaahay uu kaga soo hadlay oo aynu ku soo dhaafnay halkaa hore iyada oo ilaahay uu noogu soo dhammaystiray qisadii ku saabsanayd abuurkii aadam iyo loolankii adkaaya uu la galay kii ibliiska ahaa ee laciinka ahaa. arrintaasi xigmadaha ku sugnaa iyo waxyaabaha laga faa'iidaysanayo horeynu u soo xusnay. halkan waxa ilaahay uu ka bilaabayaa niman reer banu israa'iil lo odhan jiray qisadooda. qisaska qur'aanka marka aad u fiirsato kuwa gaalada ah waxa uu ka warramaa 4 qolo: reer banu israa'iil iyo kuwa nasaarada ama kiristanka la yidhaahdo, iyo mushrikiintii aan kitaabnaba lahayn, iyo kuwii munaafiqiinta ahaa ee sidaa u dhex gooshaya ugu dhex dhuumanaya dadka muslimiinta ah. 4taa qoloba qur'aanku aad buu uga warramaa, waanaad ku dhex arkaysa suuradaha qur'aanku iyagoo aad u tilmaamaya. haddaba reer banu israa'iil iyo qisaskoodu marka la eego suuratulbaqara aayaddan 40aad bay ka bilaabmayaan, waxaana ilaahay u wadi doonaa ilaa aayaadka 148 meelaha. waxaa la odhan karaa waxaa markaas ilaahay uu kaga hadlay 108 aayadood meelahaasaa uu kaga hadlay qisooyinkooda reer banu israa'iil. nimankan reer banu israa'iil maraaxilkii ay soo mareen iyo xadgudubkii badnaa ay sameeyeen iyo nicmooyinkii ilaahay uu ku galladaystay ku mahadnaqi waayeen intoo dhan bay aayaadku tilmaami doonaan. idan sababta laynoogu sheegayaa qisadan waxa ay tahay oo aynu ka faa'iidaysanaynaa gefkoodii oo la inoo muujinayo iyo iyada oo dadka muslimiintaa looga digayo taa, iyadoo looga digayo oo la leeyahay war kuwaasi raadadkaa horey ugu halaagsameene iska ilaaliya. nebiguna calayhi salaatu wasalaam taasuu inooga digayay oo waxa uu lahaa dadkii ahlul kitaabka ah cudurradii hore ugu dhacay iska ilaaliya: alxasad waalkibr. xadiidta sidaa ku sugan, xasad iyo kibir waxyaabahaasaa caan u ahaa ay xaqa ka santaagaan, xaqa ilaahay uu siiyo addoommahana ama markaas shayga nicmadaana ay xaasidi jireen. waxaa kale uu xusayey cudurradii ku dhacay kuwa inay dadkan muslimiintaa ku dhici karaan: latattabicunna sanana aladiina min qablikum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac wa baacan bibaac. waxa uu lahaa waddooyinkii ummadii hore ayay idin raad guri doontaan, idinkoo taaka u qaadi doona raadkooda, idinkoo dhudhudhudhu u raaci doona, baac idinkoo u raaci doona, xataa haddii ay galaan godka maansalugalayda baashaabe ee la yidhaahdo afariyaadinlaydoo godkeedu u cidhiidhiyay way idinka dabageli doontaan. markaa xigmadda laynoogu sheegaya inay sidaa u fahamnaa waa muhiim. ilaahay baa yidhi yaa banii israa'iila, reer banu israa'iila, udkuruu nicmatii, nicmadayda xusa allatii ancamtu calaykum, aan dushiinna idiin nicmeeye faraha badanaan idin siiyey. wa awfuu bicahdii, ballantayda dhammaystira. uufi bicahdikum, aniguna ballantaan idiin qaaday baan dhammaystiri buu ilaahay yidhi. wa iyaaya farhabuun, aniga oo keliya iga cabsada. reer banu israa'iil baa ilaahay u baaqay
kuwa u baaqayaa waa kuwii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay isku wakhti ahaayeen. nicmooyinka kuwa loo sameeyeyna waa aabbayaashood. markaa mawqifkii aabbayaashood unbay taagan yihiin iyaguna. sidaa awgeed baa loogula hadlayaa hadalkii lagula hadli lahaa aabbayaashood. nicmada ilaahay u nicmeeyey waxay ahayd iyada oo uu u soo dejiyey xabag barsheed iyo hilib duban oo uga keenay samada, oo ilaahay xaggiisa kuuga uu ka soo diyaariyey, oo iyaga aan kuug iyo wax kariyo ma dabaakha midna uga baahnayn. daruuraa loo hadhayn jiray. cadowgoodii fircoon haabaa laga badbaadiyey. nicmooyinku aad bay u badnaayeen. ilaahay waxa uu leeyahay haddaba ballan baan idinka qaadee ballantaydii oofiya. anna waan oofin doonaa ballantiina. ballantaa waxaa caddaynaysa aayaddii kale ee ilaahay uhi walaqad akhada allaahu miihaaqa banii israa'iil وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بلنتو تاسيه هير بنو إسرائيل بلن بان كقاضي بولاهين 12 qaybood ayaanu markaas u qaybinay. qayb walba waxaanu ka soo saarnay mid naqiiba. ilaahay waxa uu idinkaan idinla jiraa, idinkaan idin hiilinaya hadaa salaada oogtaan, sakada bixisaan, rususha rumaysaan, u hiilisaan, sadaqadana bixisaan. ballantu ilaahay u qaaday waxay ahayd inuu maciyo siinayo, u gargaarayo, dunuubtana uu ka dhaafayo, jannadana uu gelinayo. halkaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ilaahay waxaynu ka doonayna inaynu ka helayno marka aynu oofinno waxa isagu uu ina faray oo dee amarkiisa aynu qaadanno. wa iyaaya farhabuun aniga uun iga cabsada buu ilaahay leeyahay. cabsida dhabta ah isaga ayaa ehel u ah. wa aaminuu bimaa anzaltu qur'aankanaan soo dejiyey reer banu israa'iil oo rumeeya. waa kitaabka nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam, qur'aankan kariimka ah. musadiqan limaa macakum isaga oo waafaqsan tawraaddii dhiciin ahaydee laydinku soo dejiyey. walaa takuunuu ha noqonnina reer banu israa'iilow awala kaafirin bihi cidda ugu horraysa ee ka gaalowda qur'aanka nebiga lagu soo dejiyey. walaa tashtaruu biaayaatii aayadahaygana ha ku iibsannina hamanan qaliilan lacag yar. wa iyaaya fattaquun aniga uun iga cabsada buu ilaahay leeyahay. reer banu israa'iil iyadoo ilaahay ula hadlayaabaa waxau ihi war qur'aan baan soo dejiyey, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaan ku soo dejiyey, kitaabkii tawraad ahaa buu waafaqsan yahay, rumeeya. waa amar ilaahay uu siinayo. hana noqonnina kol haddii aa cilmi u leedihiin, kol haddii kitaabkiinnii ku haysaan, kol haddii astaamihii nebiga aa haysaan, cidda ugu horraysae ka gaalowda ha noqonnina. aayaddu mafhuumo laha oo macnuhu noqon maayo cidda u dambaysee ka gaalowda noqda ama cidda mar dhexe ka gaalowda noqda, macnuhu ma aha. laakiin arrintu sidii ay u dhacday baa sidan ahayd, oo halkii ay noqon lahaayeen dadkii ugu hor rumayn lahaa ayay noqdeen dadkii ugu hor gaaloobay. waar ha ugu hor gaaloobinee ka daaya buu ilaahay leeyahay oo waxyigaa haysataan idin run sheegaya arrintan idinka warramayee rumeeya nebi maxamed. aayadaha aan idinku soo dejiye tawraad ku qoranna tamanan qaliilan ha ku iibsannina, adduunyo yar ha dhaafsannina. waxa u caado ahaa culimmadii yuhuudda, dad aad u liita bay ahaayeen, baydhsanaanta iyo leexsanaantu aad ugu badan tahay. waxaa u caado ahaa in ay caamada ku yidhaahdaan aayadaha tawraad ku qorani way idinku culus yihiin, markaa aanu beddelnoonu gacmaha iyaga ku qornee intaasoo adduunana siiya. saasay odhan jireen. waa sida ay sameeyaan kuwan boobabka ama kuwoodan qisiisiinta ee iyagana kiristanka xaggooda ah siday sameeyaan weeye. oo marba cahdigii hore iyo cahdigii dambe iyo isbeddella ay ku samaynayaan baybalka ee maalinba intay ka fadhiistaan waxay doonayaan ay ku qorayaan. ilaahay baa sidaa leh tabaaraka wa tacaala walaa tashtaruu biaayaatii hamanan qaliila. marka hamanan qaliilan lacag yar ha ku iibsanina aayaadka. hadday lacag badan ku iibsadaan ka waran, marnaba looma fasaxayo. oo haddaa maxaa loo yidhi hamanan qaliilan, muxuu ilaahay haddaa u yidhi lacag yar? waxa hamanan qaliilan ilaahay ugu tilmaamaya adduunyadu siday u dhan tahay iyo waxa lacag iyo dahab yaalla.
haddii la baaldhiga aayad ka mida aayaadka ilaahay waa wax yarun bay noqonayaan waxaa la baaldhigaa oo waxyiga ilaahay wixii la baaldhigaabaa aad u yar sida awgeed baa ilaahay uu leeyahay war waxyiga shayga aa ku iibsanaysaan haba badnaadee wuu yar yahay ka daaya ilaahay baa le wa iyaaya fattaquuni aniga uniga cabsada sidaa darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamkaa isagoo la hadlayaa waxa uu lahaa man tacallama cilman mima yubtaqaa bihi wajhu llahi laa yatacallamuhu ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya lam yurix raa'ixata aljanna yowma alqiyaama qofka cilmi barta cilmigaasina uu yahay cilmiga ilaahay loogu dhowaado iyadoo cilmigaa qofkaasi u baranayo si uu adduunyo uunu helo waa cilmi diiniya oo camal saalix iyo cibaado ah qofkani wuxuu u baranayaa inuu adduunyo ku helo ilaahay jannadiisa ma uriya buu nebigu leeyahy kaasi calayhi salaatu wasalaam markaa cilmigii qofku markuu baranayo ilaahay dartii waa inay ka tahay waa inuu ajri ku doonayaa waa inuu thawaab ilaahay xaggiisa kaga doonayo sida awgeed bay culimmadu ka hadlaan qofku marka uu cilmiga dadka barayo ama qur'aanka kariimkaa uu barayo ma bannaan tahay inuu adduunyo ka qaato ama uu lacag ka qaato way kala qaadeen culimmadu haddii qofkani uu waxuu kaga maarmo helayo ama masaariiftiisa uu haysto inuu bilaash dadka ku bara wax ayaa wanaagsan oo waxba aanu ka qaadanin saasaa fiican laakiin haddii qofkii waxba aanu haysanin haddii uu shaqaystana dadka waxbariddii uu bari lahaa uu ka mashquulayo markaa waa inuu wax ka qaataa way u bannaan tahay ku dawayntiiba iyaduna sidoo kale ah oo haddii qur'aankii lagu akhriyayo cid dee xadiid saxiixa baa ku soo arooray in mushqaayad laga qaadan karo oo asxaabtu ridwaanullaahi calayhim ninay ku akhriyeen faatixada oo bukay dee 30 aryaday ka soo qaatay nebiguna waa la qaybsaday calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood qur'aanka ayuu uga dhigayay ruux dumar ahoo uu meherinayay nebigu meher buu uga dhigayay oo nin buu lahaa hebelow intaa aad qur'aanka taqaano ayaan afadan kuugu guuriye kaxayso zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan oo manfaco ayuu meherkii noqday markaa qur'aanka inuu bara ah walaa talbisu lxaqa buu ilahay yidhi xaqa ha ku dheehina bilbaadili baadilka ha ku dhex darina oo ha ku qarinina wa taktumu lxaqa walaa taktumu lxaqa walxaqa ha qarinina buu ilaahay leeyahay wa antum taclamuun idinkoo garanaya wa aqiimu salaata salaadana ooga si wanaagsan u tukada wa aatu zakaah zakadana bixiya warkacuu maca alraakiciin dadka rukuucaya la tukada oo la rukuuca reer banu israa'iil waxay samayn jireen xaq iyo baadilka isku dari jireen iyadoo xaqu uu cad yahay oo aanu qarsoonayn ayay shay kaloo baadila halkiisa soo dhigi jireen taa ilaahay wuu u diiday innagana laynooma oggola xaqu wuu cad yahay wuxuu ku sugan yahay kitaabka qur'aanka ah iyo xadiidka nebiga waa mid u cad sida qorraxda waa mid u toosan sida laamid ah sidaa awgeed cidna kama qarsoomayo xaqu cid isindhatiraysa mooyaane haddaba qofkii inuu xaqa ah labsi ku sameeyo oo baadil uu dhex geliyo waxa uu ku mutaysanayaa dembi weyn oo kaa reer banu israa'iil lagu nacdalay oo kale ah xaqa inay caddeeyaan weeye dadka culimmada ah ee ehelka u ah ee garanaya dadka madaxda u ah ee fahmaya u muuqdo waa inay caddeeyaan waa la nahiyey in la qariyo xaqii waana arrin mamnuuca weeye in la bayaamiyo weeye wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam jihaadka ugu weyn inuu yahay kelimo xaqah oo qofku uu ka ag yidhaahdo suldaan jaa'ira macnaha nin madaxa oo daalima agtiisa uu kaga dhawaaqo ilaahay waxa uu farayaa salaaddii in la ogo reer banu israa'iil buu farayaa dadka muslimiinta ah sidii loo faray oo kale sakadana ay dadku bixiyaan waa xaq xagga maalka laga bixinayo iyo mid laga bixinayo xoolaha rukuuca oo la rukuuca buu ilaahay leeyay reer banu israa'iil isagoo la hadlaya dadka rukuucaya oo rukuucday ka khashaafi jireen kana santaagi jireen war nebi maxamed iyo asxaabta la rukuuca baa la leeyahy oo ha diidina jilbahan ilaahay loo qabsanaya waxa weeye addoonnimadu ku muujinayaa qofku hadduu taa ka santaago waxa uu noqonayaa midaan addoonnimadii oggolayn warkacuu maca alraakiciin jamacna ku tukadoo jamacaa la tukada ayaa iyadana laga fahmayaa markaa wixii awaamirahee kale iyo arrimaha reer banu israa'iil ku saabsan aayaadkaa dambea ilaahay uu kaga sii warramayaa dariskani halkaa inoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmatu ullaahi wa barakaatu